الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان مرت شرفتا كسوق قيب شيء مدرشم بلان مسؤولين تحسبك أو قامين أيو قدوميها حسبك إنجنير فيصل علي ورابع لما أنتم وحدكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كدب ما أنت waxaad tartamaya laba nin oo labadooduba aan ahayn laba nin oo mas'uuliyiin aan ahayn labada ninba wala soo tijaabiyay public service bay ka soo shaqeeyeen mid 13 sano ayuu baarlamaanka soo fadhiyay midina de wasiir buu ahaa arrimaha gudaha oo waad ogtihiin wixii uu abtiyaashi ka yeelay talabaad maanta waxaan idin sheegayaa إنجنير فيصل علي ورابع وياسر عرفات كسومالله. ياسر عرفات هو قرر إنسان. ياسر عرفات هو ها ننكي أن فريسين شرين مانو والبا ميل كدقي شري مانو والبا ميل تقي شري سيدو قضية فلسطين وميل مرين لها. إنجنير فيصل علي ورابع بشي لابد بشي إن جانوري إن فبراير بانو كذا. وحكيم كولومبيا وهالك ميلها الدنيا وقف فوقي لاتين أمريكا كتالله وحقوق مجا سوماليلاند أم وليجد لقارق سوماليلاند وحلا إيران لقى مقال أيوك وحنو كقريب قال شركة international social democratic parties ما أنت لأن يا رب بدن بأشرتها واللي إحدى قول بك غير واقعي ورر هذا السمدون ونقوم مجا درني قرب كنا دليل هذا حسب عدالة دي دريالك dhalinyarta aad baan u bogaadinayaa fikirkooda iyo maxay hayday siday u mideeyeen mabda'ooda midmid waad arkaysaa qola eergaaba ka hadlaysaan arkayo lahayd oo wadani soo abaabulayo si beelaysan u hadlayo lahaa adaanu nahay samandoon waan laafto oo marka xaflad inkan kuba jirin baad iska leediin ma idinka joogayba madashii laga dhawaaqay dad aan joogin ba iskala waan laafto ma bay joogin ba hadda marka labada xisbi horta way ku fashilmeen waxay lacag ku bixiyaan maalin walba sidii ay xisbiga u cid uga saar laayeen ama ay maxay hay'ad iyadoo ka haysan laayeen gaari hooyo kaaliska kaaliyo cid bay ku oranayaan way ku fashilmeen labadan nin bas siyaasadii maanta waxaynu u baahanahay inagu dhalinyar ahaan mustaqbal baynu u baahanahay waxaynu doonaynaa inaynu mustaqbal helo oo dadkeena iyo maatideena iyo dadkeena dhibaataysan maalin walba dollarka iyo sicir bararku ay xadka goosanayaan aanu sameeyno limit aanay dhaafin oo dhaqaalaha aynu ka dhigno mid fixed oo stable sida Djibouti waad arkaysaa dhaqaalaheeda maciishadu marna maba kacaba sidii uu weligeed ahaa un buu ahaanaya wax haday kordhaana wax yar baa kordha laakiin teena maanta wuxuu ahaa $2 ba wax laga siinay Britole waxa soo kacaysa isagoo 100% la kordhiyay marka waxaan u baahanay dawlad baan u baahanay inagu maanta uma baahnin qabiil iyo reer dawlad baan u baahanay uma baahnin nin intuu maxay hayday magaceena qaato yiraahdo anagoo reer hebel ayaanu maxay hayday xisbi hebel ku biirnay ama reer hebel ku biirnay maaha waxaasi wax inaga ina anfacaya mustaqbalkeena iyo dhamaanteenba himilada aynu rajaynayno waxaynu doonaynaa inaynu noqono dadka taliya dhalinyar ahaan oday baa ina soo hortaagan ilaa weligi inagu waxaan u baahanahay inay dadkeena wanaagsan aynu doorano dadka wanaagsan aad doorato cid wax waliba way noo hagaagayaan laakiin haddaan minxu doorano waan arkaynaa waxa inaga haysta maanta kuweenii aynu dooranay shalay toole waxaan arkayay nin golaha deegaanka Hargeysa kamid ah barigii diiwaangelintu ka socotay gobolka Laascaanood waxaan ku arkay mid kulmiye ka soo baxay oo golaha deegaanka Hargeysa ku jira oo Laascaanood jooga Laascaanood maxaa uga cabay isaga Hargeysa laga doortay dadkeenu waxay u baahan yihiin in la jiheeyo oo shaqadu waxay dawladnimadu tahay la baro uma baahnin qabqable iyo afmiishaar kolba mid reer ama ina yar dadka ku dufsada waxaan u baahanahay midnimo dhalinyaro waxaan leeyahay midooba oo maskaxdiina ka shaqaysiya oday uma baahnin maanta cimaamad sita waxaynu u baahanahay qofkeena wax garanaya aqoonta leh inaan doorano waxaan doonaynaa inaanu inagu noqono dadka Britole taliya waxaan idin kula talinayaa dhamaantiin inaad marka codka ridaysaan ama codeynaysaan fartaada aad meeshii wanaagsan aad la doonato meeshii hadhow aad ka qoomamayn lahayd aana dooran
ragga Faysal la tartamayna waa garanaysaa dee cidina idin bari mayso marka waxaan idin leeyahay codkiina ogaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.